kadib markii dagaalo u dhaxeeya al-shabaab iyo wadaadka lagu magacaabo Mukhtaar Roobo maalmihii Arbacadii iyo Jimcadii aynu soo dhaafnay ay ka dhaceen deegaanka Abal oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol. Abu Mansuur ayaa waxa saaka deegaanka Abal oo muddo ku noolaa ka soo galbiyay ciidamo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka ee qaybta lixdanaad kadib markii ay maalin ka hor uga gurmadeen deegaankii uu ku sugnaa, waxaana halkaasi kulamo kula qaatay maanta saraakiisha ciidamada Koonfur Galbeed ee ku sugnaa gobolka Boqol. waxaana sidoo kale kulan kula qaatay xarunta Xudur wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliye-xigeenka ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo iyagu maanta gaaray Xudur. wasiirka wasaaradda amniga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa sharaxay sababta keentay in wadaadkan ay kooxda al-shabaab ay soo weeraraan. waxa uuna sidoo kale sheegay wasiirka amniga in ciidamo ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya gurmud ahaan uga direen wadaadkan oo uu muddo ku noolaa deegaanka Abal ee gobolka Boqol. maalmoon dagaala dareeristaadii bal dareerta inuu walbadan uu ku hadalnay dagaalka mardaama deegaanka la ka duuli marna inuu ku marnayna ilaahay idin sheemeel alla meel deegaanka ku tirsan oo cadowga iska deeyaan in dadka ka dhabaatayaan waliba tabartaan inuu ku fujino iska deeyaan insha Allah. Mukhtaar marka hore wali haayay lam oo horeyna shabaab ku tirsanay ka bacdana 6 sano ka hor isku kubay sayidi idis oo markii soo ogaaday in nimanku waldiinayaan wadna oo dadka dhabaatay hayaan maalin walba dadka la isku dilaw xoolaha la baado oo soo ogaaday ku bacdi diis isku fadheedi Mukhtaar shabaab wali ka shaltabeena fikirka in dadku dhibaatada la ku dhaafo go'doomintu la ka hayo deegaanada Koonfur Galbeed shiriidiyo la go'doomiyo la ku dhaafo in dadku maalin walba la qarxiyo 100 qofood wala halayn diin islaan diin gaala mid qabta injarna in la dilo sidaas fikirkaas yaa ka shaltabeen arrangeeka bilaawatiin ma arran sanayaal badan hadareertii way. Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa xilal badan ka soo qabtay kooxda al-shabaab waxaana kamid ahaa xilalkii uu soo qabtay hogaamiye ku-xigeenkii al-shabaab iyo sidoo kale afayeenka kooxda al-shabaab. Mukhtaar Roobo ayaa gooni u goosad ka ahaa al-shabaab tan iyo sanadkii 2013 markii uu soo baxay khilaaf ka dhex bilowday saraakiil uu ka mid ahaa iyo amiirka al-shabaab waxaana khilaafkaasi uu sababay in xubno ka mid ah saraakiisha ka soo horjeeday Axmed Gudane la dilo halka qaar kalena uu isagu ku jiray ay ka baxsadaan. waxa uu markii dambe degay deegaanka Abal oo uu ku dhashay waxa uu deegaankaas u degnaa ilaa iyo dilkii hogaamiyihii hore ee al-shabaab Axmed Cabdi Gudane iyo intii kooxdu yeelatay hogaan cusub oo loo doortay Axmed Cumar Abu Cubayda. waxaana la sheegay in go'aanada al-shabaab gaaraysay uu dibad joog ka ahaa maadaama uu markii hore banaanka uga baxay. al-shabaab ayaa wadaadkan culeys soo saaray tan iyo wixii ka dambeeyay markii Mareykanku uu ka saaray liiska argagixisada waxaana ay ciidamo badan dul dhigtay aaga uu ku sugnaa si aan uga tagin waxaana al-shabaab ka dalbadeen wadaadkan inuu isku soo dhiibo balse waa uu ka gacan seeray. Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu caansan kooxda al-shabaab 10 sano ee u dambeeyay ee kooxda isku fidinaysay gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaana uu soo noqday afayeenka guud ee xarakada al-shabaab. sidoo kale waxaa la sheegay inuu mar noqday ku-xigeenka amiirka al-shabaab waxa ayna sanadkii 2013 iskhilaafeen amiirkii hore ee al-shabaab Axmed Cabdi Gudane. Maxamuud Timaade, Telefishinka Somali News, Baydhabo.